Okay, haatan waxaan sharxaynaa waxa loo yaqaano range. Halkan waxaa inoo muuqda data ama natiijooyinka arday school oo aan u jeedno. Range waxaa la yiraahdaa dhowr cell oo isku xiran marka aan doorano. Marka aan sida u doorano mouse-ka adigoo qabanaya click ayaa dooran kartaa. Tusaale ahaan haddii aan soo qaato qaybtan aan sida u qabto laga bilaabo ardayga 5aad ilaa ardayga 13aad iyo natiijooyinkooda oo isku xiran. Qaanadahan sidaas isugu xiran magac ayaan u bixin karnaa marka aan rabno inaan magacaabno. Waxaan leenahay A6 ama A5 ayay ka bilowdaan, A5 through G13 G13 ayay ku eg yihiin oo halkaasi qaanadan ah ilaa qaanada 15. Waxaa loo qoraa sidatan A tusaale ahaan A5 G13 sidaas ayaan u qoraynaa. Waxaan u aqrinaynaa A5 through G13. Any part ama cell walba qayb walba oo cell oo isku xiran sidaas ayaan u magacaabi karnaa. Tan waxaan leenahay tusaale ahaan K11 ilaa wixii ku eg tahay S oo ayadana 23. sidaas ayaan range-ga u sheegaynaa. Range-ga marka waa marka aan dooranayno table weyn aan ka dooranayno qayb ka mid ah qaybtaasi aan dooranay ee isku xiran ayaan range u bixinay oo aan magacyo gooni ah aan siinay. Marka range-gan waxyaabo badan ayaan isticmaali doonaa, asagana formulaska ayuu soo gali doonaa. Si guud haddaan u sharxo qaybaha uu ka kooban yahay interface-kan kale, halkan tabs ayaa inooga muuqda. Tabka home-ka, insert-ga, page layout-ka, taabab way waxaani waad ujeedaan mid walbana wuxuu leeyahay waxay u yaqaanaan ribbon. Ribbon-ka mathalan home-ka waxaa inooga muuqda dhowr group oo ah oo aan ka taxakumi karno tusaale ahaan farta, textiga sidaan u hagaajin lahayn, nambarada, style-ka iyo kalarada aan u kala samayn lahayn qaanadahan, waxyaabahaasi waaye. Insert-gana sidoo kale uu leeyahay. Qaar ka mid ah ribbons-kan ama guruubyada ribbons-ka uu ka kooban yahay waxay leeyihiin fallaar hoos u taagan, taasi oo sheegaysa in uu leeyahay features waxyaabo kale oo aan sii dooran karno haddii aan gudaha u sii galno. Sidoo kale halkan waxaa inagu muuqda scroll bar oo aad wada taqaanaan dhammaan barnaamijyada leh. Halkan hoose sida aad u jeedaan haddaad aragtaan waa zoom slider-kan waxa uu noo sahlayaa inaan weyneyno farta, qoraalka iyo nambarada halkan inooga qoran qaanadaha oo dhan inaan weyneyno amaba aan yareyno ayaan samayn karnaa iyadoonan isbedelayn wax qoraalada halkan ku qoran. Sidoo kale qaybahan aad u jeedaan page-ka sida uu u muuqan lahaa ayay noo sheegayaan, laakiin inta badan waxaa isticmaalnaa normal view-ga. Si waxaa jira view kale oo sidan u dhigma sida A4-ta iyo dokumentiyada kale ayay kula muuqdaan. Haddii aan intaas u gudubno, qaanadani aad u jeedaan waxaa la yiraahdaa name box oo waxay kuu sheegaysaa halka aad taagan tahay. Halkan aan taaganahay waa F13, halka aan taaganahay waa F7, halka aan taaganahay hadda waa R16. sidaas ayay inoogu sheegaysaa marka aan u calaameynayno. Aad u jeedo waxaa waaye tusaale ahaan hadda B6 ayaan ka bilaabnay ayay leedahay ilaa G14 ayaan ku egnahay.